Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aad isku aragto calaamado jidhkaagu aanu lahaan jirin markii hore, sida burooyinka, waxaa dhici karta inay yihiin wax iska caadi ah oo aan dhib lahayn. Sidoo kalena waxaa dhici karta inay hordhac iyo calaamad u yihiin xanuuno halis ah. Haddaba ninkan oo ku nool waddanka Baraasiil ayaa baabacada gacantiisa waxa uu ku arkay buro. Sidoo kalena wuxuu isku arkay xumad xad dhaaf ah iyo miisaanka jidhkiisa oo si la yaab leh hoos ugu dhacay muddo aan ka badnayn hal wiig. Kadibna waxa uu la xidhiidhay dhakhtar maqaarka ah. Hase ahaatee, baadhitaan kadib wuxuu dhakhtarkaasi u sheegay inaanu ka helin wax cillad ah, waxaana u gudbiyey dhakhtar kale. Kadibna baadhitaan ay ku sameeyeen koox ka tirsan dhakhtarka labaad ee loo gudbiyey, waxay markii hore u maleeyeen inay cilladda ninkan haysataa tahay cillad ka imanaysa mid ka mid ah halbowlayaasha wadnaha. Hase ahaatee, baadhitaan dheer kadib waxay dhakhaatiirtaasi caddeeyeen inaanay arrintaasi jirin, halbowlayaasha wadnihiisuna aanay waxba qabin, waxaanay u gudbiyeen dhakhtar kale oo saddexaad. Isla sidoo kale, koox dhakhaatiir ah oo ka tirsan dhakhtarka saddexaadna waxay u maleeyeen inay arrintani tahay cillad ka imanaysa kelyaha. Hase ahaatee, baadhitaan kadib waxay iyaguna caddeeyeen inaanay kelyihiisu waxba qabin, waxaana loo gudbiyey dhakhtar afraad. Waxaana baadhitaan culus ku sameeyey koox dhakhaatiir oo ka tirsan dhakhtarka afraad ee ninkan loo gudbiyey, waxaanay natiijadii noqotay inay cilladda ninkan haysataa tahay mid ka mid ah bakteeriyada halista ah, taasoo markii hore ka raacday cunto uu cunay. Inkastoo haddaba ninkan laga daweeyey xanuunkii, haddana waxay dhakhaatiirtaasi hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in lagu baraarugo calaamadaha aanu jidhku lahaan jirin ee lagu arko, kuwaasoo noqon kara wax iska sahlan, sidoo kalena noqon kara wax hordhac iyo calaamadba u ah xanuuno halis ah. Ilaahay baana subxaanahu wa tacaala cudurka iyo caafimaadkaba haya.